kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii murtada iyo maamaahyada. xubinteena toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa timirtii horeba dablooba. waqti ka mid ah waayihii hore ee Soomaalida soo degeen magaalooyinka ayaa nin reer miyi ah u soo safray magaalada. wuxuu ku soo degay reer ay qaraabo yihiin. maalmo dhowr ah kadib markii uu dhammaystay danihii u yimid magaalada ayuu soo maray reerkii ay qaraabada hayeen si uu u soo macsalaameeyo. goor uu amabax yahay ayaa hooyadii reerka u soo siisay xoogaa timir ah oo uu jidmar ka sii dhigto. timirtii ayuu hore u soo qaatay, socodkiisana bilaabay ilaa habeenkii uu galay meel duur ah. si uu u nasto waxna u karsado ayuu ku beedhay geed weyn. nasiib darrose roob xooggan oo dabeelo badan wata ayaa kala qaadi waayey. markii waagu baryay hore ayuu ka bilaabay socdaalkiisii. goor ay tahay duhurkii oo harraad iyo gaajo daran ay hayso ayuu la kulmay koox dad ah oo Soomaali iyo Carab isugu jirta. ileen gaajo adkaysi ma lahe wuxuu ku beeray dadkii si uu wax guriga la mariyo uga helo. mid ka mid ah dadkii ayaa ninkii reer baadiyaha ahaa u keenay xoogaa timir ah. ninkii reer baadiyaha ahaa intuu ninkii si degdeg u eegay oo u dhoola cadeeyey si la yaab leh ayuuna ku yidhi, adeer timirtii horeba dablooba, isagoo ula jeeda timirtii xaafadda qaraabada ahaayeen laga soo siiyey welina wuu wata oo dab uu ku kariyo wuu waaye. midaanina siduu yeeli? haddaba dhegaystayaal, sidaas ayay ku baxday maamahdaas la magac baxday timirtii horeba dablooba.